labadan nin aad u jeedaan waa laba mudane oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay deegaan doorashadu tahay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bakool waxa jirta hal dhacdo oo ay si isku mid uga hadleen oo mid kamid ah lagu ciqaabay ilaa haddana raadadka dhibaatadii ka soo gaartay ay muuqato kan kalena lagu abaalmariyay dawladda Itoobiya markii dawladda federaalka ee Soomaaliya bay dhaba lagu duulay dadkii gacanna siiyay bay ahaayeen noo soo istaagay waxaanu si weyn u diidanahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil oo u horseedi kara dagaal ka qarxa mandaqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo raro gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaan Cabdirashiid Jilay waxa uu akhriyay war-saxaafadeed xildhibaanada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed qaarkood ka soo jeeda ee ku mideysnaayeen oo lagu taageeriyay shacabka gobolka Bakool ee qabtay banaabax ay ku taageerayaan ciidamada Itoobiya isla markaana ay ku diidayaan ciidamada Masar ka imaanaya waxa war-saxaafadeedkaasi ku sheegay inay taageersan yihiin rabitaanka shacabka gobolka Bakool iyo deegaanada Koonfur Galbeed isla ninkan oo isagana xal loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo lagu magacaabo Axmed Nuur Sheekh Maxamed Loxos isagana goobtaas ayuu ka hadlay isla sidaas ayuu sheegay oo ah inuu taageersan yahay shacabka gobolka Bakool rabitaankoodana oo ay in Itoobiya ay rabaan uu ku garab istaagi doono Cabdirashiid Jilay waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada markii uu taageeradaasi sameeyay oo war-saxaafadeedkaas u akhriyay xilkii ayaa laga qaaday kaliya loogama harin ee xataa warbaahinta bulshada ama baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida ayaa aad looga dhaliilay ilaa waqtigaana markii aad dib u eegtay Facebook-giisa gaarka ah iyo waxyaabaha soo qoro waxa muuqanayso inuu ka soo kaban laayahay hadalkaas oo si qaldan sida uu sheegay loo turjumay oo dhibaato ku yeelatay ilaa haddana maalin kasta wuxuu bartiisa Facebook ku soo qoraa inuu yahay wadani aabiyaashiisa u dagaalameen qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya isagana oo dhabtaas ku taagan yahay Itoobiya oo sarrabin tani waxay muujinaysaa hadalkaas saameynta uu ku yeeshay warkiisii hore laakiin isla ninkan oo isla gobolka Bakool ay ka soo jeedaan ama Koonfur Galbeed Soomaaliya ka soo jeedaan xildhibaano isla yihiin si isku mid ahna ay u hadleen oo arrinta Itoobiya hal meel iska taageen ma qabiyo dhibaatadaas waxaaba lagu abaalmariyay xalay in loo magacaabo wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mana jirto wax dagaal baraha bulshada ah iyo warbaahinta Soomaalida ay u wajahay waxa la isweydiinayaa waa maxay dambiga uu yeeshay ergeyga gaarka ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee arrimaha caafimaadka iyo nafaqada oo xilkiisa uu ku waayay isla ninkan oo ay hal meel ka wada hadleen hal aragtina ay qabeen uu ku helay wasiir dowlo inuu qaato xilka ninkan loo magacaabay waxa habeen hore iska casilay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaasi oo kamid ahaa dadka ku aragtida ah ee taageersan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaax Madoobe isla markaana diidan sida ay dawladdu wax u wado iscasilaadiisana wuxuu ku sheegay inuu ka xun yahay hab maamulka dawladda Soomaaliya markii loo eego khilaafka Jubbaland iyo dawladda dhexe haddaba waa maxay sababta labadan nin oo isku deegaanka ah baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan midna lagu abaalmariyay xil wasiir dowle midna xilkii ergeyga gaarka ah ee looga qaaday iyagoo isku mid uga hadlay hal dhacdo aragtidaada qaybta hoose faalada noogu reeb muuqaalkan si jargaray aad iyo aad u mahadsantahay waxaan ku hadlahayaa si gaar ah afka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Bakool oo dhan afkooda anaa ku hadlahaya run ahaantii dadkaana dareenka ay sheegeen iyo xaaladda ay sheegeen waan la qabnaa dawladda Itoobiya markii dawladda federaalka ee Soomaaliya bay dhaba lagu duulay oo maayafuulka xabadda ay ka dhacaysay oo kuwa bay dhaba joogay iyo dawladaba rabay halka in lagu saquurnuujiyo dadkii gacanna siiyay bay ahaayeen noo soo istaagay villa Soomaaliya inuu maanta qaranka Soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxda Soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkaan laga taago dadkii gacan naga siiyay bay ahayn gaal dil gartiisana siiba la yiri run ahaantii iyadoo bayaanka anagu ku aad yahay midnimada dalka Soomaaliyeed iyo jiritaanka xuduudaha Soomaaliyeed inay muqaddas tahay cid aan kula shirkoobaynana aysan jirin taaka dhulka Soomaaliyeed in la bixiyana aan rabin haddana ma inkirayno dawladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed iyo dadka Koonfur Galbeed iyo kuwa Bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno
maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno dadka annaguna ilaa hadda waxay ku tiirsan yihiin oo cadowga al-shabaab iyo hawshooda ilaalintooda iyo nabad ilaalintooda waxa weeye iyadoo oo wax lagu bedelay aan jirin geedaha hoostooduna la taagan yahay tala aan u midaysanahay iyo hawl loo midaysan yahayna aysan jirin inay arrintaa iyadaa waxa weeye dadkaas meel cidlaa lagaga dhaqaaqo ma aqbalayno damiirka annaguna nama siinayo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud halkan waxaan ugu ansixinnay iyadoo aanan eegin qoraallada iyo qaraarada uu haysto arrintaasay damiirka annaga u taabatay badda soomaaliyeed ilaalinteeda iyo hawsheeda dowladda turkiga oo warqado un looga qaaday annagoo hawshaa sugayna ilaalinteeda iyo hawsheeda sabab xuduudka loo geeyo oo laba dowladood colal isaga hor keeno ma garanayno annaga mana aqbali karo wasalaamu calaykum waraxmatullahi